waxaad moodaa in maalmahani dambe dhalintu ay isku qaldayaan cishqiga iyo jacaylka iyagoo mooday inay yihiin laba eray oo isku macno ah balse ma oga inay kala micno duwan yihiin. haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya cishqiga iyo jacaylka? ugu horreyn aan ku hormaro waa maxay cishqi? cishqigu waa dareen kugu keli ah. dareenkaasi waxa uu noqon karaa mid lagaa aqbali waayey oo lagugu gacan seeray sida cilmi boodhari ku dhacday oo kale, ama mid aadan weli qofkii u sheegay inaad dareen aad u qaaday laga yaabo inaad ka cabsanayso in lagaa aqbali waayo. tusaale aan ku siiyo, axmed waxa uu dareen u qaaday faaduma, markasta uu arko muuqiida waxaa garaacma wadnaha, waxa isbeddel ku yimaada habdareenkiisa. waxa uu ku fikiraa inuu u sheegto dareenka uu u qaaday iyada, balse waxa uu ka baqaa in lagu gacan seero. dareenkani uu axmed u hayo faaduma ayaa waxaa la dhahaa cishqi. aan u imaano xagga jacaylka. jacaylow maxaa tahay? jacaylku waa dareen la kala samaysto, sida inaad qof qadariso, ixtiraamto, xaggiisa aad u badato, dhaqankiisu aad ka hesho, kadibna halkaaad isku fahantaan qofkii, kadibna midkiina uu ku hormaro sheegitaanka inuu dareen jacayl kuu qaaday halkiinaad adiga kaga aqbasho. ileen waa qof aad istaqaanaan, sheeko wadaag aad ahaydeen, isku kiinbixi jirtay. hadda kani waa jacayl laba qof kala samaysatay. waxaana filaya inaad kala fahanteen farqiga u dhexeeya cishqiga iyo jacaylka. haddaba aan ku weydiiyo su'aal, adiga ahaan maxaad u kala taqaani cishqiga iyo jacaylka? ma isku mid ayay xaggaaga ka yihiin? halka kommentiga hoose noogu reeb jawaabtaada. waad mahadsan tahay.